السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر هذا channel كنا channel كيفتين كبريود. ما أنت فيديو قلنا حق سوق أنتنا تلك بيرو. بيرو ووطن ديمقراطية وقيبسن شانية لاباتن قبل وحلقو سفيا سيدا سوقا وسوكريو oo leh heerka sare ee horumarinta aadanaha iyo heer dhexdhexaad ah oo leh saboolnimo sababa 19% waa mid ka mid ah dhaqaalaha ugu caansan gobolada oo leh celcelis kor ah oo ah 5.9% waxaana uu leeyahay mid ka mid ah heerka ugu sareeya ee wasaaradda adduunka ee celceliska oo ah 9.6%. howlaha dhaqaale ee ugu weyn waxaa ka mid ah macdanta waxa soo saarka beeraha iyo kalluumeysiga oo ay weheliyaan qaybo kale oo sii kordhaya sida isgaarsiinta iyo biotechnology. wadanku waxa uu ku kooban yahay qayb ka mid ah Pacific Boomers oo ah koox siyaasadeed iyo dhaqaale oo wadamada ka mid ah wadamada ku yaala Latin America ee Pacific kuwaas oo wadaagaya isbedelada guud ee kobaca wanaagsan aasaaska dhaqaalaha ee Exelson Trada maamul wanaajiga iyo furfurnaan ku socoshada caalamka. Peru waxay ku tiirsan tahay xorriyad bulshada waxaana ay leedahay heerka saddexaad ee ugu hooseeya ee dilalka Koonfurta America. waa xubin firfircoon oo ka mid ah iskaashiga dhaqaalaha ee Asia Pacific isbahaysiga howlaha Pacifica iskaashiga dib u dejinta iyo iskaashiga caalamka waxaa loo tixgeliyaa awood dhexe. Peru waxay leedahay dad badan oo isku dhafan oo ka badan 31 milyan oo ay ku jiraan Americans, Europeanka, Afrikaanka iyo Aasiyaanka. luqadda ugu weyn laga hadlo waa Spanish inkastoo tiro badan oo Peruvianska ah ku hadlaan Quechua, Aymara ama luqado kale afka hooyo ah. tan waxay isku dhafan tahay dhaqanka dhaqameed waxayna keentaa kala duwanaanshaha oo ka mid ah farshaxanka, cuntada, suugaanta iyo muusiga. Peru ama Jamhuuriyadda Peru waa wadan ku yaala galbeedka Koonfurta America. wadanka waxaa xuduud la leeyahay wadamada Ecuador, Colombia, Brazil, Bolivia iyo Chile. madaxweynihiisuna waxa lagu magacaabaa Martin Vizcarra waxaanu qabtay 2017 waxaan la filayaa inuu dhiibo madaxtinimada 2021. wadankan ra'iisul wasaarihiisana waxa la dhahaa Salvador del Solar wuxuuna qabtay 2019 lamana garanayo xilliga uu ka tegay. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeena maanta ee kala hadlayno wadanka Peru. waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo fi amaanillaahi wa xifdihi.